Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibada qiimaha leh kusoo dhawaada mar kale koorsadeeni baahdaneyd barnaamijka Adobe Illustrator qaybteedii labaad oo aan kusoo qaadan doono sida loo design gareeyo boor xayeysiin ah ama poster. Sidoo kale waxaan si faahfaahsan ugu baraatikeyn doonaa sida loo sameeyo poster noocan oo kale ama boor noocan oo kale. Muuqaalka ka horeeyay oo qaybtii koowaad ah koorsada waxaan kusoo qaadanay sida loo soo dejiyo setup-ka ama software-ka barnaamijka Adobe Illustrator, sida loogu shubo computer-ka marka aad soo gashid wajahda hore sida ku muuqanayso oo noocan ah. Sidoo kale inta waxaan kusoo qaadanay sharxitaan kooban oo aan ka bixinay layer banner-ka iyo toolbox-ka iyo tool banner-ka. Sidoo kale waxaan sharaxaad dheeraad ah ka bixinay setting-ka ama waxa loo yaqaano reference-ga oo Adobe Illustrator. Haddii aad u baahan tahay dib ayaad uga laaban doontaa shaashada ayaan kuu soo saari doonaa oo dhanka midig muuqaalkan. Fadlan soo daawo haddii aadan soo daawanin waxaan hubaa in wax badan kaa caawin doono. Magacaygu waa Cabaas, waxaan ahay nashqadee. Haddii ay tahay markii ugu horeysay aad channelkayga soo booqato, fadlan subscribe ii saar, like saar muuqaalka, saaxiibada la wadaag, wixii aragtay qaybta faallada inoogu reeb. Aan kusoo laabano muuqaalkeena maanta oo aan kusoo qaadan doono sida loo nashqadeeyo boor noocan oo kale. Marka waxaa soo samaysanaysaa size, waxaa leedahay new file aa leedahay, new aa leedahay. Halkan waxaad u bixinaysaa intaan waxaan ka dhigaysaa centimeter. waxaa leedahay size, waxaa qaadanaysaa 50 oo kale, intana 5. intaan oo kale sida u deynay. qaybtan waxaad dooranaysaa oo verticalka. Markaad dooratid waxaad leedahay create. Marka saan ayuu kugu soo muuqan doonaa size-ka. Then halkan waxaa iska leedahay nan kan meeshaan ayaa waxaad dooranaysaa shape-kaan dooranaysaa. Then soo drag gareynay saa leedahay. waxaa furaysaa halkan oo meeshaan ayaad furaysaa. Then waxaad dooranaysaa kan ka dooratid wax yar. halkan aad ku laabanaysaa double click-aa leedahay. haddana waxaad ku laabanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay rectangular-ka. waxaa leedahay right click, waad dul tegaysaa. waxaa leedahay right click, waxaad dooranaysaa elliptical-ka. markaad dooratid waxaa qabanaysaa shift iyo alt. markaa qabatid waxaad dooranaysaa orange. markaad dooratid waxaad taabanaysaa a oo direct selection ah ama si toos waxaad u tegaysaa halkan ayaad dooranaysaa. dan anchor point-gaan aad ku dhufanaysaa path-ka. kadib waxaa kuu soo baxayso calaamada line-ka. dan kanaa qabanaysaa, kanaa ku falaadaysaa. marka sida aragtiyaa ka sameynaya. marka asaa ku falaadaysaa. saa ku falaadaysaa. dan waxaa leedahay halkan ku filan. marka
waxaan leedahay right click soolisaan leh kadib waxaa leedahay right click refactor okay leedahay so marka wax yar waa hagaajinay saas markuu uu yahay waxaan dooranaysaa rectangularka aad daawanaysaa rectangularka dooranay kadib waxaa sameynaysaa adiga waxaa ku falaadaysaa shapekan adoo anchor pointiga ka faa'iideysanayo so marka waxaan rabnaa xoogaa yar sharaxaadna u sameyno waxaan tegaynaa halkan bateenkan waxaa kala soo degay netka dhimalan haddii aad u baahan tahay failkan waxaan ku dhigi doonaa linkigiisa qaybta descriptionka ayaan ku dhigi doonaa failkaa ku falaaday marka ama ku sameeyay cafan asigaa isticmaali kartaa waxaa leedahay soo qabanaysaa barbaroni waaye marka barbaroniga waa marka arabtid inaa biisaha xayeysid sidoo kale xoogaa marka intaa ka dhigee si marka xoogaa marka hadaa ka dhigtid waxaa sameynaysaa ayada waxaa leedahay qabanaysaa kobiyanay moogta waxaa leedahay alt kadib falarta la jiida ama shift la sii qabanay si ay kugu sinaato soo marka kan waxaa leedahay reflect aad kala dheh transform dheh danna reflect dooro okay dheh soo marka wax yar minimize garee ama yaree kan naasna sii yaree soo marka waxay kugu noqonayaan oo like reality oo kale maanta soo marka waxaad dooranaysaa biisahan dhimalahan saasoo qaadanaynaa marka waxaa sameynaysaa shadow yar oo sameynayna right kaligaa leedahay waxaad dooranaysaa ellipticalka then waxaa sameynaysaa saamka usoo dooratid oo kusoo daraangareynay okay then leedahay waxaad dooranaysaa black sawirka biisidaa dooranay waxaa leedahay waxaa isku qabanaysaa shift iyo control kadibna calaamada oo open bracketka qabanaysaa soo marka hadda waa somehow waa wayaan isku keen fadhisaa soo marka aad qoraalkii u baahan nahay inaan ku qorno waxaan leenahay iido dhim inaan qoraarbe laakiin iido maxaan maleynaa in maqaayad la dhahaa maleynaa dhimi iskaga qoreynaa waxaa leedahay
dhadhami horta wax kale kuma jecel ku dooranin xoogaa waa far dhaadheer waaye marka wax kale ma ku dooranin waxaa leenahay dhan kan waxaad dooranaysaa dhadhami pizza like pizza dhadhami camal marka dan waa weyneynaysaa zoom soo dheh kan waxyar kor u qaad okay kan dooro boldi ka dhig ka wili boldigeeda kuma qanacsanin soo marka waxaad tagaysaa stroga boldiga rabaa baarisid moogta aad sii kordhisid waxaad dooranaysaa black soo marka sorry midkii aan rabay maahan mid kala doorte kanaad dooranaysaa biis ku qoran tahay stroga furo black dooro ilaa 4 adiga 5 ka dhig biis okay kan waxaa ka dhigaysaa yellow kan waxaa ka dhiganaynaa white okay kan waxyar okay ayada iyo dida isku alaan gariyay soo marka kan waxyar saandhi waxweyneyna iska dhig okay soo markaad waxaa u baahan nahay inaan soo gishano yaanyadan waa soo qaadanaysaa waa weyneyne qaybtaanaa ku dhufanaysaa embedded soo calaamadan slaab ugu dhufo soo marka yaanyada soo qaado waxaad dooranaysaa halkaan imo meeshaanay ku qoran tahay transparency normal ka takimo multiplied waxaan kala baroweynaynaa camera saan dhaho almost hadda branding uu inoo fadhiyaa halkaana imaanaysaa then waxaad dooranaysaa red markaad dooratid waxaa sameynaysaa soo marka saan dheh halkaan arnaa markina halku dhig camal ku qorno waxaad ku qoraysaa hadda u dalab qoyskaaga soo marka fontiga waa bedelaynaa inta bobinska shift iyo alt isku qabo mar walba aa wax yareynaysid ama aa wax rabtidna midkaan waxaa leenahay extra boldary tan qabo san boldary guda u dalab qoyskaaga soo marka waxaa rabnaa muhiimadda inay noqoto sorry waxaa imaanaysaa director kadib sida loo diyaariyo board hadda midkan waa sample waaye waxaa idin dhigi doonaa linkiga kala degaysid ilaa muddo 4 saac qaybta descriptionka meesha kala deg wixii practice halkaas ku practice haddii aad u baahan tahay in aad ila discussion garaysid design-ka aad soo sameysay ama boor noocaan oo kale waxaan rajeynaa inaad muuqaalkan ka faa'iidaysatay fadlan haddii aad ka faa'iiday saaxiibadaada la wadaag
inta aan muuqaalka ka bixin waxaan rabnaa inaan isku dirno hal testi. faylkan hadda aan ku shaqeynay oo AI-ga waxaa idin dhigi doonaa qaybta linkiga descriptionka ayaan dhigi doonaa linkiga meesha aad kala degi doontaan. waxaa idin dirayaa hal testi oo ah sida loo sameeyo ID card. hal soo sameeyo dan waxaad igu soo direysaan gmailka halkan aan kusoo qoraayo gosaar88. insha allah 3 qofood ee ugu design fiicnaato ayaan soo qaadan doonaa designkooda, danna markaas ayaan muuqaalka soo sameyn doonaa anigoo waxa un ka fiirinayn. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. haddaa ilaa heerkaa inala soo gaartay waa kaaga mahadcelinayn waqtiga qaaliya waad qaybina naga siisay. subxaanaka allahu bixamd ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.